war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu xeer madaxweyne ku go'aamiyay in wasaaradda dibadejintu u madax bannaan tahay hawlaha la xiriira qaxoontiga iyo barakacayaasha oo hore uga tirsanayd wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Madaxweynuhu markuu arkay soo jeedinta wasiirka wasaaradda dibadejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuna taariikhsanayd bishii 3 sanada 2015 ujeedadiisuna ay tahay dib u soo celinta waaxdii qaxoontiga ee wasaaradda dibadejinta oo hore loo hooskayay wasaaradda arrimaha gudaha. Markuu arkay qoraalka ku taariikhaysan bishii 8 sanadii 2010 ujeedadiisuna ay tahay in xilka wasaaradda dibadejinta lagu wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha, taasoo looga gol lahaa in la mideeyo labada wasaaradood. Markuu tixgeliyay dib u habeynta wasaaradaha xukuumadda ee kala saaridda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dibadejinta oo yeelatay jiritaan qaanuuni ah iyo wasiir hogaamiya qaab dhismeedkeedina dib loo soo celiyay. Markuu arkay qoraalka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhsnaa bishii 8 sanadii 2006 iyo qabyo qoraalka xeerka nidaamka xukuumadda ee golaha wasiiradu ku ansixiyeen bishii 2014 isla markaana xukuumaddu u gudbisay golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay ku xusan tahay in dadka qaxoontigan u jooga Soomaaliland, dadka dib ugu soo noqonaya xeryaha, dadka qaxoontiga ee dalalka dibadda ka soo noqonaya iyo barakacayaasha gudaha ay xukuumadda Soomaaliland uga mas'uul tahay wasaaradda dibadejinta ee Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silaanyo wuxuu go'aamiyay in wasaaradda dibadejintu u madax bannaan tahay hawlaha la xiriira qaxoontiyada iyo barakacayaasha, in wasaaradda arrimaha guduhu ku wareejiso wasaaradda dibadejinta hawlaha ay haysay intii ay labada wasaaradood isku jireen ee la xiriira qaxoontiyada iyo barakacayaasha. war-saxaafadeedkaasi oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ku saxaana xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada ee Soomaaliland Naasir Yuusuf Daahir.